kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu ku eegayno waxqabadka ciidanka booliiska maamulka SSC Khaatumo. ciidamada booliiska ee maamulku waxa ay soo mareen marxalado kala gedisan. degleelkii koowaad ee ciidanku waxa uu ka bilaabmay xilligii kacdoonka iyo halganka ay ku jireen dadka deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn si loo helo ciidan suga ammaanka magaalada Laascaanood oo markaasi ay ka socdeen colaado dadka deegaanku ay iskaga saarayeen maamulkii gooni-goosadka ahaa ee Soomaalidiiska Somaliland ayaa ka socday. waxaa taliyaha qaybta booliiska ee markaasi loo magacaabay Khadar Maxamuud Faarax Gowrac halka xisaabiyaha loo magacaabay Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud kuwaas oo ahaa hogaankii ugu horeeyay ee ciidan booliis ee deegaanku uu yeesho tan iyo markii ay dadka deegaanku la soo noqdeen taladooda isla mar ahaantaasna ay bannaanka iska dhigeen maleeshiyaadkii Somaliland ee muddada dheer ka arriminayay deegaano ka mid ah maamulka SSC Khaatumo. magacabistaas saraakiishaas waxaa barbar socotay tababarka iyo sidoo kale qorista ciidamo loogu talagalay inay sugaan ammaanka guud ee magaalada Laascaanood oo markaas ay ku soo hiranayeen isla mar ahaantaasna ay joogeen inta badan labeenta waxgaradka mandaqada Sool, Sanaag iyo Cayn. waxaa la qoray iyadoo la kaashanayo maamulka degmada oo markaas hormuud u ahaa meerka caasimadda Cabdiraxiin Cali Ismaaciil gudida ayaka talinta ee 33 ahayd iyo ismada dhaqanka in la soo xilo tiro askar ah kuwaas oo markaasba loo bilaabo tababar. waxaa lagu guuleystay in la keeno ku dhawaad 100 askari oo ciidanka booliiska u horeeya maamulku yeelanaya qayb ka noqda kuwaas oo tababar loo furay. waxaana tababarkaasi oo muddo 3 bilood socday si weyn isu garab taagay maamulka degmada ee dowladda hoose Laascaanood iyo sidoo kale gudida ayaka talinta ee 33 ahayd. halkan horteena taagan ciidan aynu u diyaar garaynay inay noqdaan ciidankii booliiska ee gobolka Sool oo ah ciidankii ugu horeysay ee loo aasaaso deegaanadan hinta dadka deegaanku talada ay gacantooda kula soo noqdeen ayagu maamulanayaan. barkan oo ah ayaamihii u dambeeyay gabagabada ahayd aan ku jiro sida ogtiin waxa jira aad ka warhaysaan dugsiyo badan oo ay tababar ka furan yihiin. dafcadan waa dafcad kamid ah ciidamadii tababarku u socday waliba gaar ahaan ciidankan especially uu yahay ciidan booldaara ama ciidan boolis daraawisha oo u tababaran dhinacna inay gacanna cadawga kula dagaalamaan gacanna ay amniga gudaha ay ka shaqeeyaan. ciidanka halkan taagan 100% waa ciidankii dhammaystay tababarka waxaa loo furay 97 askari waa dhammaysteen 4 nin mooyaan oo tababarkii tahli weydo ka baxday iyo nin xanuunsaday oo kamid ah ragga maanta loo xidhay koorsaysa isaga ugu dhamaatay mooyee intii kale waxay noqdeen niman nadiif ah oo sida ay simada u soo xuleen uga soo baxay oo dhaqan iyo akhlaaqiyad leh. ilaahay baa noo suuro geliyay tacabka waxa iska kaashaday degmada Laascaanood maamulka degmada gudiga 33 oo garaamka bixinayay iyo ismada dhaqanka. ciidanka aad arkaysaan ee quruxda badan ee saaka tababarka inuu xidhayno oo labada bilood aan tacab soo galeynay haday tahay dirayskooda koofiyada kabaha iyo suunka haday tahay gaariga booliiska aan u diyaarinay gaarigii koowaada haday tahay mushaharkii bishan Juun ee dhamaatay oo anigu aan maanta siinayo tamar kasta hal ahaado aan ugu talagalay maanta iyagoo fantasiinaya askartu oo reerale oo xaasas leh in aysan afar suuqa la gelin. waanu ku heshiinay sidii askar ay ciidan waynu ku ballanay ballantii waa iga diyaarsan ka waa fulinayaa wixii maanta ka dambeeya. waxaan mar labaad u mahad celinayaa qofkan bini'aadamka u mahad celin bal Ilaahay inuu mahad celiyo maamulka Puntland gaar ahaan taliya ciidanka booliiska General Muumin dirayska shaarka surwaalka iyaga noogu deeqay laakiinse koofiyadaha iyo suunka iyo kabaha
annagaa u soo iibinay qoladaana waa uga mahadnaqaynaa waxaanu kaloo uga mahadnaqaynaa howlgallada aynu ku jirno iyo dembiilayaasha aynu qaqabanayno ee aynu garowa geynayno sida aynu uga gacan siiyeen qolada booliisku ee Puntland iyagana uga mahadnaqaynaa uga magaalada iyo guddiga 3 iyo ismada dhaqanka ee SSC waxaan kaloo mahad celinayaa saraakiishii tababartay ciidankan gaadka ciyaarka iyo qaabka loo qabto nimanka maartay tuugada iyo alkulisayaasha iyo dambiilayaasha sida ay u tababarteen aad baan iyo tababartay ugu mahadcelinaynaa ciidankan ugu mahadnaqaynaa ciidanka boolisku waa meesha dawladnimadu ka asaasanto ciidanka boolisku waa saaxiibka shacabka ciidanka booliska waxa laga rabaa inaad ka dabargoysaan deegaanadeena ugu horreyn horta magaalada Laascaanood qamriilaha tuuga xashiislaha iyo dawaniifka jaatuuska u ah Soomaalidiidka intaas baa laga rabaa inaad ka dabargoysaan inkastoo xuuraanka ay cidi leedahay cidiina waynu asaasi doonaa haddii la idhaahdo waxaanu ballan qaadaynaa annagu golayaal baanu nahay xukuumad ma nihin oo fulin ma nihin wixii awoodayada inaanu ka raadino dowladda federaalka alxaq baana nagu leeyahay dowladda federaalka intaas kadib ciidamada bilayska waxa ay guteen shaqooyinkii loogu talagalay iyagoo markaasna gacan bira ku qabtay ammaanka magaalada Laascaanood shirkii ay ka tashiga mandaqada SSC Khaatumo ee guddida 33 loo igmaday waxaa lagu go'aamiyay in shirkaas lagu doortay guddi ka kooban 45 kuwaas oo iska soo dhex dooran doona hogaamiya dadka mandaqada SSC Khaatumo isla ahaantaasna ka saara ku meel gaarka maamulka loo doortay waxaana guddidaasi ay iska doorateen hogaamiye iyo hogaamiye ku xigeen waxaana loo doortay hogaamiyaha maamulka ku meel gaarka inuu noqdo Cabdulqaadir Axmed Cali Firdhiye halka ku xigeenkiisana loo doortay Dr. Maxamed Cabdi Ismaaciil Shiine xubnaha kale ee guddidaasna waxa ay noqdeen baarlamaan kuwaas oo iyana iska doortay gudoomiye ku xigeen koowaad iyo gudoomiye ku xigeen labaad shirka waxa lagu doortay gole hoggaan oo ka kooban 45 xubnood oo ah hoggaanka rasmiga ah ee arrimaha SSC Khaatumo hoggaanka la doortay waxa ay dardar geliyeen shaqadii ciidamada bilayska ay ka hayeen caasimadda Laascaanood 25 Agosto jabkii ciidanka Somaliland kadib waxa hoggaanka maamulka SSC Khaatumo isagoo tixraacaya isla mar ahaantaasna eegaya baahida loo qabo dhismaha ciidanka booliska maamulka Khaatumo uu hoggaanka booliska ama taliyaha ciidanka booliska uu u magacaabay Sareeye Guuto Siyaad Maxamuud Cabdiraxmaan kaas oo noqday taliyihii ugu horeeyay ee ciidanka booliska maamulka Khaatumo taliyuhu waxa uu dardar geliyay shaqadii ciidamadu hayeen waxaana taliyuhu uu ku soo beegmay mandaqada Sool Sanaag Yacayn oo si buuxda maamulku uga taliyo waxaa la dardar geliyay shaqada fadhiyada kala gedisan ee ciidanka bilayska waxaana taliye Siyaad Maxamuud Cabdiraxmaan intii uu xilka hayay uu ku guuleystay inuu soo dhiso boolis tayadiisu sareyso waxaana la dardar geliyay saldhigyada kala gedisan ee magaalada Laascaanood iyadoo isla mar ahaantaasna loo soo magacaabay taliyayaal saldhig ku xigeenno iyo sidoo kale oo biqorayaal waxaa la dardar geliyay shaqooyinka saldhigyadu hayaan waxaana lagu guuleystay in si guud loo sugo ammaanka guud ee caasimadda oo markaasi ay imaanayeen marti sharaf kala gedisan oo u hamuuqabay inay maroon caga dhigaan magaaladii halganka ku caanka baxday ee kacdoonka buluuga ah midho dhalay waxaa magaalada soo gaaray xildhibaanadii ugu tirada badnaa ee ka socda baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo ciidamada ammaanka ee bilaysku ay ku guuleysteen sugitaanka ammaankooda kuwaas oo muddo dheer ku sugnaa magaalada Laascaanood iyo deegaano kale oo hoos taga magaalada Laascaanood ee xarunta maamulka SSC Khaatumo madaxda sare ee halkan ugu soo dhaweysay ee ka socota maamulka SSC Khaatumo oo ka jawaabaysa kana tarjumaysa midnimada ummadda Soomaaliyeed anigoo khaasatan ka soo jeeda gobolka Awdal oo USB-na ah isku ma arkaya inaan marti meesha ku ahay marka hore inaan u mahad celiyo maamulka reer Khaatumo sidoo noo soo dhaweeyeen runtii dad badan ay isweydiin doona Xamza maxaa meesha geeyay maanta awooyaashii ay gooreen oo meeshaan yimid awooya Allah raxmada Cabdiraxiim Muumin oo gabar reer Khaatumo ka guursaday meeshaan
laakiin safarka maanta uu ka duuban yahay safarka awooyaashayda means maanta waxa uu niman safarkan waxa la solidarity to the people of Khartoum ومحل يرادا تاgeerida midnimada reer Khartoum ay maaygaasi salaame anoo koonfur galbeed wakiilka ayo marka aadan u faraxsanahay inaan maaragtay maanta aan ka mid noqdo wafdigan halka yimid runtii ujeedada iyada waxay tahay inaan maaragtay magaalada aan aragno dadkii aan booqano aan indheeyno aad baad u mahadsantihiin ciidamada bileysku waxay dardargeliyeen shaqooyinkii ay hayeen waxaana taliyuhu intii uu xilka hayay uu ku guuleystay diiwaangelinta saldhigyada iyo ciidamada bileyska ee ka howlgala gobolada maamulka SSC Khartoum waxaana la tira koobay dhammaan ciidamada booliska ee ka howlgala saldhigyada kala gedisan ee maamulka SSC Khartoum iyadoo laga duulayo sidii loo dardargelin lahaa shaqada ay hayaan ciidamada ammaanka ee caasimadu waxaa la yegleelay guddi ganacsato kuwaas oo doorkooda uu yahay sidii gaadiid ay ku shaqeeyaan ciidankaasi ay u heli lahaayeen waxaana lagu guuleystay soo galista gaadiid tiro beer ah kuwaas oo qayb weyn ka qaatay xasilinta iyo ammaanka caasimada maamulka Khartoum waxaana xafladii ay xilka ku wareejinayeen gaadiidkaasi ka soo qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka SSC Khartoum mudane Cabdulqaadir Axmed Cali Firdhiye taliyaha ciidanka booliska Saraakiil Guuto Siyaad Maxamuud Cabdiraxmaan taliyaha ku-xigeenka ciidanka booliska Saraakiil Guuto Ismaan Ibrahim Ducaale mayorka caasimada Cabdiraxiin Cali Ismaaciil gudida ganacsatada iyo sidoo kale dadweynaha aad u tara badan inaynu maanta goobjoog ka noqono mashruucii koobaad ee baaxadda leh ee isku tashiga bulshadeenna aynu ku qabsanay ciidamada ammaanka booliska qaybihiisa kala duwan iyo ciidanka asluubta oo gaadiidkan wax ku leh booliska waxaan leeyahay waxaad tihiin mas-uuliyiintii dadka kani ay u igmadeen oo ku aamineen badqabkooda iyo nabadgelyadooda boolisku waa saaxiibka bulshada waxaa ciidamada ammaanku ay door weyn ka qaateen amniga guud ee maamulka SSC Khartoum jeerkana waxaa magaalada soo gaaray wufuud kala gedisan oo ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug kaas oo si ballaaran loogu soo dhaweeyay caasimada Laascaanood waxaana sugidda ammaankiisa qayb weyn ka qaatay ciidanka booliska maamulka Khartoum sidoo kale waxaa magaalada soo gaaray wafdi dhaqameed oo ka mid ahaa boqor Burhaan boqor Muuse iyo Simo Tirabeel oo ka socday maamulka Puntland waxaana ku soo dhaweeyay magaalada Laascaanood isimada dhaqanka ee maamulka Khartoum iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala gedisan ciidanka bileyskuna waxay ahaayeen kuwa lafdhabarta u ah sugitaanka ammaanka guud ee marti sharafta kala gedisan ee soo gaaraysa magaalada taliyaha ciidanka boolisku isagoo ka duulaya dardargelinta shaqada ciidanka bileyska oo hayaan bulshada qaybaheeda kala gedisan waxaa la soo dhisay dhalinyaro iyagu markaasi qayb ka noqonaya ciidanka bileyska kuwaas oo lagu qaatay shaqooyin kuwaas oo lagu qaatay shahaadadooda waxbarasho iyo aqoontooda waxaana loo igmaday inay qayb ka noqdaan ciidamada turbataariyada ama ilaalada cashuuraha kuwaas oo tababar muddo qaatay la siiyay isla marhaantaasna si rasmi ah uga howlgalay kastamyada kala gedisan ee deegaanada maamulka SSC Khartoum mar kale waxaa fursad la siiyay ardayda waxbaratay ee danaynaysa inay ka mid noqdaan ciidanka bileyska qaybihiisa kala gedisan jeerkana waxaa la soo xushay ciidanka ilaalada wadooyinka loo yaqaano traafiga waxaa la qaatay arday kale oo iyagu qayb ka noqon doona ciidanka bileyska gaar ahaan qaybta dambi baarista ee loo yaqaano CID kuwaas oo laga soo xushay jaamacadaha kala gedisan ee magaalada Laascaanood waxaana ardaydaasi tababar ay qaateen kadib haatan ay yihiin kuwa ka howlgala saldhigyada kala gedisan ee maamulka SSC Khartoum markii koowaad maaha waxaa ka horeeyay ciidankii turbataariyo laanta cashuuraha oo tababarka hadda aan u dhammayno shaqeeya in muddo hadda shaqeynayay ugu yaraan baan u malaynaya 4-6 bilood qoladan waa gruubkii labaad runtii waxay kaga duwan tahay kuwii hore qoladani waxay u badan yihiin jaamiciyiin ardaydii jaamacadaha iyo dugsiga sare aanu ka qaadanay si aan u helno dad aqoontoodu ay diyaarsan tahay oo la qabsan kara duruusta ay qaadanayaan booliiska ay garan karana
culayska ay leeyahay sharciga ay baranayaan bulshadoodana ay ugu adeegaan si daacadnimo ah iyaga iyo traafiko ayaanu hadda tababarnay waxaa noogu xigi doona guruubo kale ay ka mid yihiin ciidanka baambayda waanu sugayna qalabkoodii inaan helo qalabkoodii markaan helana aanu siino tababar halkan ku siino insha allah taliya saraakiishan ama saraakiil xigeenada aad tababarka u soo xidheen ka boolis ahaan iyo ka hay-ad ahaan midinka isku filnaaday oo tababarka u soo xidhay mise cid baa idinka caawisay cid naga caawisay oo bannaanka ah ma jirto annaga macallimiinta booliiska iyagaan iska dhex qabanay macluuminta bixinaad arkayseen kulligood waxaan ciidankii booliiska SSC Khaatumo waxa weeyaan kalaaskii in fact duruusta ay ku qaadanayeen jaamacadda Nugaal ayaa naga caawisay khayr Allah siiyo wixii kale buugaagtii iyo macallimiintii iyo aqoontii intaba annaga haysanay oo fishanay xaqiiqdii runtii waa dadaalay inta awoodayada ah waayo dal muddo dagaal ka socday ayaanu la kulannay jidadku meel walba furan yihiin wax walba saddex yaacsan yihiin hoos baanu ka bilownay maanta bulshada markhaati ka ah deegaanka siduu yahay baa markhaati ka ah in muqaadaraadka maalintaanu nimid jidkaasaa lagu cabayey hadda aad iyo aad bay u yaraatay in iibsigeeda iska dhaafee cabitaankeeda qofka lagu xidho iyo waa cabsan yahay lagu xidho wax badan baanu ka qabanay waana sii wadaynaa runtii amniguna waad u jeedaa waxa weeyaan sida uu yahay aad buu u fiican yahay ilaah baa mahad leh waa dal Afrika ah oo Soomaaliya ku yaala wax badan baa dhacaya dabcan laakiin intii annaga dadaalkayaga waxa weeyaan waa soo afjarnaa kiisaskoo dhan dhacdooyinkoo dhan runtii rasaasta maalintii aanu shaqooyinka maamulku bilaabayay iyo maanta farqiga u dhexeeya idinna waa la socotaan dadkuna waa la socdaa ahaan ama ka ciidan boolis ahaan maxaad ugu soo talagashay maamulka SSC Khaatumo wallahi wasaaradda amniga iyo taliska booliska maanta waa annagoo wada socon waxaan la kulannay taliyaha ciidanka booliska ee SSC Khaatumo iyo saraakiishiisa waxay nooga warbixiyeen xaaladda amni sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu faraxnay shaqadii xoogga lahayd ee sanad gudaheeda ah ay qabteen iyagoo aanan cidna mushahar iyo qalab iyo agab cidna ay siin ee isku xilqaameen aad iyo aad baan ugu faraxnay waxaan dhagaysanay oo kale dad kale iyagana shacab ah oo bogaadinaya shaqada boolisku ay qabteen hadduu ilaahay yiraahdo dee maanta waa ogeedo waxaan rabnaa waxaan dhagax dhignay ra'iisul wasaarku dhagax dhigay taliska booliska SSC Khaatumo ee magaalada Laascaanood sidoo kale waxaan soo booqannay oo aan kormeer ku soo sameynay saldhigyada magaalada ku yaala iyagana baahiyahooda iyo wax badan waa soo ogaanay waxaan rabnaa insha Allah wax badan ka qaban waa maasad adam mudan